Assalaamu calaykum. Kaamirada ayaa sanadahan dambe noqotay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee la adeegsado. Waxaan muuqaalkan ku iftiimin doonaa hal abuurka kaamirada. Yaa alifay kaamirada? Ha degdegin, bal daawo muuqaalka. Qofkii ugu horeeyay ee ikhtiraacay kaamirada sawirka qaada wuxuu ahaa Louis Daguerre oo ah farshaxaniiste sidoo kalena farmashiile ahaa. Wuxuu ka soo jeedaa Faransiiska, wuxuuna ku dhashay magaalada Koorge ee waqooyiga Faransiiska 1787 dhalashadii Nabi Ciise kadib. Louis Daguerre wuxuu doonayay markii ugu horeysay inuu soo saaro kaamirada, laakiin dhowr jeer ayuu ku fashilmay, balse wuxuu ku qanacsanaa uuna ku kalsoonaa kuna faraxsanaa sheegani uu qabanayo. Rajadiisuna waxay ahayd in uu waxa soo saaro ay isticmaalaan dadka isaga ka dambeeya. Wayna dhacdayba oo waataan baraha bulshada sawirada kaamirada aan ku soo gelino. Kadib isku daygii wuxuu guuleystay 1827 milaadiga markii uu Louis la kulmay nin la yiraahdo Joseph Naps. Nimankani waxay isku dayeen inay soo saaraan kaamirada iyagoo go'aansaday inay wada shaqeeyaan, laakiin nasiib darose Joseph Naps ma uusan caawin saaxiibkii maadaama uu geeriyooday 1833. Sidaas daraaddeed Louis Daguerre ayaa isaga oo keligii ahaa isku dayay arrimihiisii. Maalin kastaba wuxuu sameyn jiray waddo uu ku doonayo inuu ku ikhtiraacdo kaamirada, laakiin mar waliba wuu ku guuldareysan jiray. Balse guuldarada wuxuu u arki jiray cashir. Everyday uu soo kacana wuxuu sameyn jiray wax weyn, isagoo ka takhalusaya wixii shalay uu qabtay, sidii uu shalay ahaa, halkii uu shalay ku sugnaa, iyo wixii shalay uu haystay, isagoo bedelayo sidii shalay uu u fikirayo. Wuxuuna Louis u dhaqaaqay horay. Wuxuu sameeyay wax ka duwan wixii shalay, aragti ka fiican tii shalay, niyad iyo hididiile ka fiican midii shalay. Kadibna wuxuu ku guuleystay hamigiisii, wuxuuna ugu dambeyntii guuleystay 1837 halkaas oo uu ku sameeyay nidaam wax ku ool ah oo sawir qaadis ah, wuxuuna ugu magac daray nidaamka Daguerre. Louis Daguerre waa saynisyahan iyo sawir qaado muuqaal ahaan ah, sidoo kale waa hal abuure kaamirada qoraxda. Wuxuuna sameeyay ikhtiraacyo fara badan, gaar ahaan ikhtiraca diorama. Ugu dambeyntiina Louis Daguerre wuxuu dhintay kadib guushiisii cajiibka ahayd ee 1851.